kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halka aad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka qarxay farda lagu xidho oo u dhaxeeya jabadaha Samroon iyo Ciise 70 qof oo ku dhimatay colaadda Ciise iyo Samroon maxay tahay sababta uu ciro ugu tusaaleeyay waqadiriya balse uu aamusay farda lagu xidh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaad kaloo aad maqli doontaan xildhibaanada labada gole ee Jubbaland iyo Puntland ku metela dowladda federaalka oo u ambabaxay magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe kadib fashilkii shirka Villa Soomaaliya maqalad taraafikuba mise waa weerar lagu hayo sumcadda Soomaalida Minneapolis xaqiiqda kiiska Cabdiweli Axmed Taraagle ku nool Mareykanka ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kaloo qayb ka ah Somaliland oo cambaareysay weerarada Iiraan ay ku qaaday dalalka Khaliijka iyo golaha deegaanka Manakato Minneapolis oo xeer adag ka soo saaray howlgallada ciidanka haysta qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan u diyaar garooba waxaad naga daawanaysaan Wajawa Media fadlan subscribe sar lana wadaag saaxiibadaada rabtaa inaad la jaan qaado xabaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Central ha sugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waxaynu ku bilaabaynaa wararkeeni maanta dagaalka qarxay farda lagu xidho oo u dhaxeeya jabadaha Samroon iyo Ciise 70 qof ayaa ku dhimatay colaadda Ciise iyo Samroon maxay tahay sababta uu ciro ugu tusaaleeyay waqadiriya balse uu aamusay farda lagu xidha deegaan wax yar u jira magaalada farda lagu xidh ayaa dagaalku ku dhaxmaray jabadaha Gadabuursi iyo beesha Ciise oo iska difaacay khasaare weyn gaarsiiyay wararka naga soo gaaraya gobolka ayaa sheegaya in dagaal khasaare badan dhaliyay uu ka qarxay deegaanka farda lagu xidh dagaalkan oo dhaxmaray dadka deegaanka iyo koox hubaysan ayaa yimid xilli lagu jiro bil barakaysan waxaana soo baxaya faahfaahin ku saabsan khasaaraha maanta iyo midka guud ee labadii bilood ee u dambeeyay tuulada farda lagu xidh oo ah bar xuduudeedka nabadda lagu yaqaan ee u dhaxaysa beelaha Ciise iyo Samroon ayaa marti u ahayd colaad weyn dadka deegaanka ayaa iska difaacay weerar ay soo qaadeen jabadaha Samroon kaas oo ka dhacay deegaan xoogaa u jira magaalada wararku waxay sheegayaan in dadka deegaanku ay iska caawiyeen weerarkaasi iyagoo khasaare weyn gaarsiiyay dhinacyadii soo duulay xaaladda gobolka ayaa u muuqata mid faraha ka baxaysa labadii bilood ee u dambeysay oo kaliya waxaa la xaqiijiyay in ugu yaraan 70 qof ay ku dhinteen iska horimaadyaddan u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Gadabuursi waxaa intaasi dheer dhaawacyo tiro badan iyo burbur hantiyadeed oo baaxad leh iyadoo dadka rayidka yihiin kuwa u dhimanaya colaadahan soo noqnoqday dhinaca kale dadka deegaanka iyo indhandeeyaasha ayaa su'aal weyn ka keenay aamusnaanta hogaamiyaha waqooyi galbeed Cabdiraxmaan Ciro waxaa la xusay in Ciro uusan hal maalin ka hadlin dhiigga ku daadanaya deegaanadan muddo labadii bilood ah halka uu saacado gudaheedii kaga hadlay geerida hal qof ku dhintay deegaanka waqadiriya arrintan ayaa dhelisay walaac xoogan oo ku aadan nooc hogaamiye uu yahay iyo sida uu u kala eexanayo dhiigga muwaadiniinta xaaladda deegaanka farda lagu xidh ayaa
ah mid kacsan, iyadoo dadka deegaanku ay heegan ugu jiraan iska difaacidda weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca jabhaduhu, waxaana soo taraya baaqyada loo dirayo hoggaanka sare si loo joojiyo dhiigga micno darrada ee daadanaya u dhexeeya beelaha Samroon iyo Ciise. Xildhibaanada labada gole ee Jubbaland iyo Puntland ku matala dowladda federaalk Soomaaliya oo u ambabaxay magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe kadib fashilkii shirka Villa Soomaaliya. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka kana soo jeeda Jubbaland iyo Puntland ayaa ka baxay Muqdisho iyagoo sheegaya in wadatashi ugu laabanayaan deegaanadooda. Waxay sheegeen in doodda wax ka beddelka dastuurka aan loo marin hanaan sharci ayna sidaasi darteeda uga maqnaadaan fadhiyada golaha. Xubnaha baxay waxaa ku jira qaar ka tirsan guddiga dastuurka iyo wasiiru dowlayaal ka tirsan xukuumadda. Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dowlad goboleedka Jubbaland ay isugu yeertay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee laga soo doortay deegaanadaasi. Shirkan oo ah mid wadatashi ayaa qorshihiisu yahay inuu si rasmi ah u furo maalinta beriya. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku dhawaaqday shirweyne wadatashi oo isugu imaanayaan xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay Jubbaland. Shirkan ayaa la filayaa in magaalada Kismaayo kaga furmo 2 bishan Maars oo ku beegan maalinta beriya, isagoo daba socda isbedelada siyaasadeed iyo xaaladaha cakiran ee dalka ka jira. Wararku waxay intaas ku darayaan in ku dhowaad 40 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ay maanta ka dhoofeen magaalada Muqdisho iyagoo kusii jeeda magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan madasha wadatashiga. Xildhibaanadan ayaa matala deegaanada Jubbaland, waxaana la filayaa inay Kismaayo ka wada sugnaadaan maalmo. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin qodobada horyaala shirka, haddana xogaha hordhaca ayaa sheegaya in lagu lafaguri doono xiriirka u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka, arrimaha masiiriga ee Jubbaland, iyo sidii xildhibaanada labada aqal ee hal mowqif uga istaagi lahaayeen mustaqbalka maamulka iyo doorashooyinka dalka. Ugu dambeyntii, shirkan ayaa kusoo beegmay xilli xasaasi ah oo ay jiraan kala aragti duwanaansho dhanka siyaasadda ah, waxaana indhaha lagu hayaa go'aamada ka soo bixi doona kulankan oo ay u ballansan yihiin madaxda Jubbaland iyo xildhibaanada labada aqal. Warar kale waxay sheegayaan in xildhibaanadii u ambabaxay Garowe dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho. Wararkeennii dambe ayaad kaga bogan doontaan. Ma qalad taraafikaba mise waa weerar lagu hayo sumcadda Soomaalida Minneapolis? Xaqiiqda kiiska Cabdiweli Axmed Taraagle ku nool Mareykanka. Dhacdo ka dhacday wadooyinka waaweyn ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha dalka Mareykanka kadib markii darawal Soomaaliya oo kaxaynaya gaariga xamuulka truck uu galay waddo khaldan. Darawalkan oo magaciisa lagu sheegay Cabdiweli Axmed kuna nool magaalada Minneapolis, Minnesota ayaa galay waddo aan loogu talgalin gaadiidka xamuulka isagoo muddo dheer ku socday jidkaasi khaldan. Inkastoo ahayd qalad dhanka nabadgelyada wadooyinka ah, haddana ugu dambeyntii ciidanka booliiska ayaa gacanta ku dhigay Cabdiweli, waxaana loo xiray jebinta sharciga taraafikada. Darawal Soomaaliya oo aan awoodin inuu akhriyo calaamadaha asaasiga ah isagoo ku wada gaari xamuul ganacsi oo culeyskiisu yahay 80 tan jid khaldan oo ku yaala gobolka Missouri, isagoo sidaasi ku waday maylo badan. Arrintan argagax leh waxay abuurtay xaalad khatar oo sababi karta dhimashada 10 qof oo rayid ah. Cunsuriyadda iyo warbaahintu waxaase xusid mudan in dhacdadani oo ahayd qalad dhanka wadista gaariga ay si weyn u adeegsadeen warbaahinta xagjirka iyo kuwa cunsuriyiinta. Halkii laga hadli lahaa qodobada sharciga uu jebiyey, darawalku waxay indhaha ku hayaan asalkiisa Soomaalinimo, diintiisa iyo halka uu ka soo jeedo, iyadoo la isku dayo in qalad qof keliya galay lagu sameeyo sumcadda bulshada Soomaaliyeed ee Minneapolis iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Dhacdadan waxay tusaale cad u tahay sida qaladka yaryar ee dhanka sharciga looga dhigo aalad lagu weeraro dadka looga tirada badan yahay. Inkastoo sharcigu qof kasta qabanayo, haddana waa in laga digtoonaadaa in qofnimada iyo asalka qofka loo adeegsado naceeb iyo marin habaabin bulsho. Degdeg, Somaliland ayaa cambaaraysay weerarada Iiraan ay ku qaaday dalalka Khaliijka. Wararka naga soo gaaraya Hargeysa ayaa sheegaya in dowladda Somaliland ay goordhow soo saartay qoraal rasmi ah oo ku cambaaraynayso weerarada gantaalada ay dowladda Iiraan ku qaaday dalalka Khaliijka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somalilan ayaa tilaabadan ku tilmaantay mid khatar ku ah amniga gobolka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Somalilan ayaa qoraal kulul ay soo saartay goordhow ku caddaysay mowqifkeeda ku aadan xiisadda ka taagan gobolka Khaliijka. Somalilan waxay si adag u cambaaraysay weerarada Iiraan ka fulisay, iyadoo ay sheegtay in tilaabadaasi ay tahay mid xadgudub ku ah madax-bannaanida dalalka deriska iyo amniga caalamka. Qoraalka ka soo baxay Hargeysa ayaa sidoo kale lagu muujiyay in Somalilan ay garab istaag buuxa u fidinayso walaalaha ku yaala dalalka Khaliijka ee weerarku saameeyay. Wasaaraddu waxay carabka ku dhufatay in nabadgelyada badda cas iyo marinada muhiimka ee ganacsiga ay ku xiran tahay xasiloonida dalalka gobolka. Weerarada caynkan oo kalena ay khalkhalgelin karaan dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah. Somalilan waxay ugu baaqday beesha caalamka inay qaadaan tillaabooyin looga hortagayo sii kordhinta xiisadda, iyadoo xoojisay muhiimadda ay leedahay in wadahadalladu lagu dhameeyo khilaafaadka, balse dhanka kale lagama maarmaan ay tahay in la xushmeeyo xuduudaha iyo nabadgelyada dalalka saaxiibka la ah. Ugu dambeyntii, mowqifkan adag ee Somalilan ka qaadatay weerarada Iiraan ayaa ku soo beegmaya xilli ay aqoonsi ka heshay Israa'iil, iyadoo Hargeysa ay markaan muujisay inay qayb ka tahay isbahaysiga u taagan amniga iyo xasiloonida gobolka. Ugu dambeyntiina, Golaha Deegaanka Manakota ee Minneapolis oo xeer adag ka soo saaray howlgallada ciidanka haysta. Sida ay baahisay Associated Press, qoysaska ku xiran xarun dadka lagu hayo oo ku taala Texas ayaa laga soo sheegay in cuntadoodii laga helay tixri daryeel caafimaad oo liita iyo nalalka oo shidnaada saacadaha weliba, taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku saabsan xaaladda carruurta iyo waalidiinta ku jira xabsiga. Warbixin dheer oo APA News ka diyaarisay xarunta Daily Immigration Processing Center ee ku dhow xadka Mareykanka ee Texas ayay kaga hadashay xaaladda nololeed ay wajahayaan soo galootiga ku xiran xabsigaasi, kuwaasi oo ay ku jiraan carruur da'doodii ka yartahay 18 sano. Manakato, Golaha Deegaanka ee magaaladaasi ayaa toddobaadkan ansixiyay xeer degdeg ah oo ciidanka haysta ka mamnuucaya inay xirtaan maaskaro. Sharcigan cusub waxaa sidoo kale ka dalbanaya in aqoonsigoodii wataan marka la weydiiyo, inay xirtaan kaamiradaha wax duuba, haddii la heli karana ay magaalada sii ogeysiiyaan ka hor inta aysan wax howlgala halkaasi ka fulinin. Guud ahaan waxaan halkan kasoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen waa Jaba Media. Tayo kulantada buuxiisa la akhyaaray. Nabadgelyo.